رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شلي صباحدي waxaa ka dhacay ex control sida aad la socotaan qarax weyn oo ay ku baaba'een dad badan oo Soomaaliyeed muwaadiniin ah qaraxaasi marka uu dhacay madaxda dawladda ilaa waqtigan hadda aan xilligaas qaraxu dhacay ilaa waqtiga hadda aan joogno waxa ay ku jireen gurmad loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay waxa noo suura galay dadaal badan kadib 16 ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas in loo qaado dalka Turkiga oo aan walaalahanahay waxa ila taagan halkan wasiirka amniga qaranka safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya wasiirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka iyo dhakhtarka taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo dhakhtarka oo qaabishan dawladda Turkiga badbaadinta bukaanka Soomaaliyeed hadii ay yihiin halkan iyo hadii ay yihiin wixii halka wax looga qabo intaba sida darteed waxaan rabay halkan inaan uga mahad celiyo dawladda Turkiga oo mar walba dadka Soomaaliyeed garab taagan marka ay dhibaato la soo gudboonaato sida aad ka warqabtiin laba muwaadin oo Turki ah ayaa laftooda ku geeriyooday qaraxaas foosho xumaa shala ka dhacay ex control afgooy meedadkii labadaas muwaadin Turkida ah ayaa ayagana sidoo kale loo qaaday dalka Turkiga waxaana halkan nala jooga dhammaan mas'uuliyiinta aan sheegay ayaga ayaan rajaynayaa inay kelmadooda ka yiraahdeen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum.